السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا دوكتهين كما لابانينو isbedel ayaa lagu sameeyay oo saasi aan u sii burnayn iyo xarkii la filayay ee isku shaandheynta golaha wasiirada iyo magacaabista saraakiil inkastoo saraakiisha hadda weli ay taagan tahay oo warqadaha qaar kor loo haayo sida aan xogta ku helayno oo kulan TV ay ogaatay balse waxaan ka hadlaynaa oo aan rabnaa inaan toosho ku ifino adigana aad ila fiiriso sababta qof wax fahmaya tahay muuqaalka hadii uu soo gaaro ila fiiri saddex wasaaradood ayaa isbedel lagu sameeyay oo boosaskii la kala bedelay haddaba su'aasha ugu horeysa inta aan gudaha gal faahfaahinta waxay tahay oo aan rabo inaan adiga ku weydiiyo maxay macna ahaan xukuumadda u soo kordhinaysaa in wasiir laga bedelay booskii uu joogay booska la geeyay mase loo fiiriyay in wasiirka gaashaandhigga ama wasiirka caafimaadka ama wasiirka arrimaha dibadda meesha la geynayo in uu khibrad u leeyahay ama uu yaraan shahaado cadeynaysa xilka loo dhiibayo in uu soo diyaariyay qaybta hoose ka gudub waxa aan rabno waxay tahay marka wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha dibadda iyo saddex wasaaradood ee ama la bedelay ee boosaska loo kala bedelay maxay ku soo kordhin kartaa macna ahaan arrimaha la isku hayo oo siyaasiyiinta durayaan koow waxaan ka arbaabeynaa arrimaha dastuurka oo leeyihiin ma jirto cid lagala tashtay hoos mu dhigi kartaa marka isku shaandheyntan kooban muujadaha ku furan dowladda gaar ahaan villa Soomaaliya midda xigta waxay tahay ma abuuri kartaa oo mucaaradka codkoodii iyo wixii ay wadeen hoos mu dhigi kartaa isbedelka wasaaradda gaashaandhigga lagu sameeyay tan arrimaha dibadda maxay macna ah oo ugu fadhiisaa marka dowladda federaalka arrintan dowladdii hore uu hogaaminayay farmaajo ayaa looga bartay marka xaalado noocan oo kale ay taagan yihiin oo dowladdii warqaha la haysto lagu dhagan yahay in ay wax taariikhiso oo xaaladaasi taagan xaalad kale ku damiso sidaas darteed hadda villa Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo habeen dhan shirayay maxay uga dhigan tahay arrimaha dagaalkana maxay ku soo kordhin kartaa arrimaha doorashooyinka oo dood ay ka taagan tahay arrimaha shirka wada tashiga la yiraahdo oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dhowr jeer ay ka hadleen maamulada Puntland iyo Jubbaland ay qaadaceen isbedel maxay abuuraysaa arrintan maxaysa kula muuqataa in lagu daminayo haddaba in boos waxay leeyihiin dadka qaar in booska lagu bedelo ma soo kordhin karto qidad dagaal haddii aan sida saxda ah loo wajihin miiska wada hadalka dowladdan aysan la tagin siyaasiyiinta shacabka aysan garab weydiisan tuutaha la wada xiran dagaalkana si dhab ah loo galin oo aan mashruuc laga dhigin anaga maahan sida dadka qaar ay leeyihiin oo aan mashruuc gaar ah laga dhigin arrimaha dagaalka haddaba adiga aragtidaada ku furan tahay adigoo aan xadgudbeynin cid gaar ah farta aan ku fiiqeynin maxay arrintan kula tahay oo ay dowladda ku daminaysaa haddaba dadka qaar waxay ku sheegayaan idinka maahan dadka qaar waxay ku sheegayaan laba arrin midda arrimaha shidaalka ee heshiiska madaxweynaha sida hoos waaya uu u galay oo aan baarlamaanka la marsiinin iyo sidoo kale baarlamaanka oo wada mooshin xilka looga qaadayo gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Soomaaliya kaas oo lagu eedeeyay in dhowr ajando oo aan sax ahayn iyo dhowr shuruuc oo aan sax ahayn in baarlamaanka uu ku qanciyay in ay ka doodaan si degdeg ah loo marsiiyay kuwaas oo hadda baarlamaanka indhaha ay ku kala qaadeen iyadoo xaalad adag lagu jiro labadaas ay dadka leeyihiin adiga maxaa saddex ah oo aad ku dari lahayd muuqaalkan haddii ku soo gaaro si gudbi like share lana sii wadaag asxaabtaada haddii aadan ka mid ahayn inta nagu xiran hadda ku soo fiir boggeena oo follow soo dheh. Assalaamu calaykum.